ما في عندهن محل الشاقي شانل كيني شاني بيوتي وأنا شكرية أن عاو هذا أقصلي أن وحا إيو قصلي أنيقو أستغرام كجوغا ساد أركسان عوانك أن كسو قرأي يوتيوب كا أبتي ليبان وحسوس قليه شأني بيوتي وحوين أفد محوكو قليه حسوس أن وحوين أبتي ليبان هرتا وقفان تاقيرو بوحو هايو انستغرام كان كلا سعدا يوتيوب كان كلا سعدا وقصليا إيو قصليا أبتي وصلت درولو يقانا إدانا قرنين كلكا كياعة أن وحكا لا دعدي إنان محي هداني وفيديو أن لكل مي وكاقا هلايو محي هداني وكلي هيدادكي صومالي دينا أن وصلت دعونا سأولاد واوين ودشين أولاد في عنو دشين أو محي هداني ونني حسوسيني راقو محالة دهاي نمبينتو عنو عيدامية صومالا سيسودن جران ما كالكاس واكاسي ان فيديوغا إلا داودا إلا قصلة انتان قصلة يديكنا كالكاس كسو نغن دونا لبيرو شاكو وغاقاون با حسوستي عيني لقبستي لها كسابسان مهمة cuntooyinku ay u leeyihiin jirka iyo qofka bini'aadamka ila daawada waxaan markaa cuntid ilmo waaweyn dhalay abo ilmo waxaa dhalay firfircoon laakiin qofaa waxaan cunin si animuna la garacsi animun waalo animun waxaa ka horeeya hilibina cunta abo ila aan kugu dhashay fiiriya fartiida galaysa xataa fartiida galayso انت ما كقلا مس انت ما كقلا مس انت كقلا الى انه كودا سيفي ترتيب يعني وحي ستيب باي ستيب واي مو يو هاف تو ميك اوت اون ستارتد لكن تبوك ايه جدا او ماي جاد ما إلا قصة شنساني أقصله وارنتي سوين أحبا كرنا دانك واحد جرتي أن لما شيء كحسستي أن بوك أخرستي هذه إمك إلى 5 سنوات كسو حكتابا كفيلة هاد وغير أنا إيه كسو حكتاب شكل سوحي كساب سنة association باكجري مرايكا أن association كاس أو أن هذا كو ساب سنة كو حيلا لها إني كسو ورمان magaalooyinka tuulooyin loo yaqaano amba sida inaga oo naqaan baadiye dadka degan ka dheer maxaa la dhahay capitalka amba magaalo madaxda ka fog ee tuulooyin loo yaqaano ayay tegi jireen ee kasoo warami jireen cuntooyinkooga dhaqankooga siday yihiin kalka waxaa dhacday inay wadan waxay tegeen afrikaana inay degaan wadan afrikaana dhacday oo qaas ahaan tuulo yar oo wadankaas kamida tuuladaas oo ahayd tuulo xeeb ku taala haddaba waxay dareemeen inay dadkii tuulada deganaa xeebta ku taalay iyo kuwii magaalo madaxda deganaa iyo magaalooyinkii u dhawaa inaynaba isku midba ahayn dadkii ay jir ahaanna dhismaha jirkuna kala duwanaayeen maxay haadeen firfircoonina ku kala duwanaayeen ay energy ku kala duwanaayeen aqli ahaanna ku kala duwanaayeen kolkaas way yaabeen waxay isdhaahdeen dad wadan mida wada degan ayaa haddana kala duwan oo tuuladaasi ayna tuuladii kale la mid ahayn ay dadkii magaalo madaxda deganaa la mid ahayn kolkaas waxaa la raadceeyay sababtii ku dhacday inay dadkan tuuladan degan xeebta badda maxay uga duwan yihiin dadkii kale waxaa la ogaaday inay dadkan xeebta degani ay cuni jireen cuntada ay u badan tahay proteinku ku badan yahay taasoo ay ka helayeen sababtoo ah taasay ka helayeen cuntada taas proteinkaas ay ka helayeen
and poissonga amba farsis waxaa lagu dhahdaa poisson af Soomaali waxaa lagu dhahaa kalluun and maxaa la dhahaye Soomaalideena kale waxaad u taqaanaa malay baa u taqaanaa nakadi igara lahada haddii aan khalday iyo saxa and waa kaasi cuni jireen kolkaasaa la ogaaday inay cuntada darteed ay ku badnayd jirkooga iyo nafaqadooda protein ku badnaa oo dhismihii jirkoogana dhisay maxaa la dhahaye amba ahaato jir ahaan amba ahaato muuqii oo ka duwan iyo maskaxdii oo ka duwan enerjigii oo ka duwan taasaa keentay proteinkii badnaa ayaa u keenay inay ka duwanaadaan dadkii kale wadankii la deganaa kolkaa proteinku waa shay qaaliya oo shay dhismaha jirka iyo nafaqada jirka dhismaha jirka iyo maskaxda u wanaagsan oo sheekadii labaad baa jirta sheekada labaad haddana waa Mareykan bay ka dhacday Mareykan dhexdeeda wadan Afrikaan ma ahayn Mareykan dhexdeeda jirtay oo head sheeko waxaa qoray buug kaga dhex sheekeeyey qoray buug la dhaho hawada amba jawiga qofka bini'aadanka iyadaa samaysa kolkaa wuxuu uga jeedaa macam qofka jawiga ku nool yahay ayuu la mid noqdaa ayaa amba qofka dhisaysa amba ka dhigi karta qof liita waxaa lagu wariyay buuga dhexdiisa inay uu ku qoray wateerkaasi magaalo kamida magaalo yar tuulo yar oo Mareykanka ku yaala inuu tegay uu arkay dadkan magaalada ku nooli magaaladan dadkii ku noolaa inay ahaayeen dad shakhsiyaad inaga af Soomaali waxaan u naqaano qoqoyan firfircooni lahayn jir ahaanna dad aanan dhisnayn qaabkoogu dhisnayn maskax ahaan dhisnayn wax ka maqan yihiin oo qoqoyanaan iyo adi wax lagu yaqaana dee esprit oo kale lahaa oo firfircooni lahayn energy lahayn bay ahaayeen kolkaas waxaa la sameeyey in la ogaado waxaa dhacday in la sameeyey raadcays research la sameeyey si lagu ogaado maxaa dadkan san ka dhigay magaaladan idil dadka ku nool maxaa sababay inay san u dhaqmaan ay ahaadaan dad qoqoyan dad aan firfircooni lahayn dad aan energy lahayn maxaa san u galay kolka waxaa la ogaaday inay yihiin dad maxay heedanay xoolahay cunaan iyo beerahoy dhaqdaanba inuu ka maqnaa minka beeda ayaa ka maqneyd oo keentay inay dadkaasi jawiga ku degan dhulkaa degani inay sidaa noqdaan dad aan sidii aan soo sheegnay ahaadaan dad iska qoqoyan oo iska kartidii iyo maxaa la dhahaye energy ku yaryahay waxaa dhacday haddaba dowladii Mareykanka waxay go'aansadeen inaa dadkan rejiimkoogi wixii cunayeen geedahoogii xawayaankoogii iyo loogu daro vitamiinkii ka maqnaa oo iyaga la siiyo vitamiinkii B'da ka maqnaa waxaa la dareemay muddo kadib inay dadkii sidii ka firfircoonaadeen sidii ka dhismo fiicnaadeen sidii ay ka maxay heedeen ay ka aqli badnaadeen ay noloshoodii sidii ay dhaantay sidii hore ay aada u dhaantay kolka waxaa weyn inta sheekooyinka waxaa looga jeedaa ina aan cuntadeenan aanu ilaashano maadaama waa shay aada u important u muhiima dhismaha jirkeena u muhiima dhismaha aqligeena u muhiima energy ahaan aan ka helayno muhiim ay u tahay kalkaas waxaa waaye inaan eegno inaan u fiirsano waxaan cunayno midda kalena waxaan kula talin lahaa dadkeena inkastoo wallahi wax aanan horta aniga wadanka Djibouti aan ka yimid uma maleeyo inay noqon karto wax dadku ay karayaan lacag ahaan amba qiimo ahaan goyn karaan ma sanadkiiba kol inuu qofku uu maxay heedan shakab sameeyo
waxay ka dhigan tahay uu wada eego wixii ka maqan jirkiisa oo maxay ahaydeen kalkaasna uu la tago qof doctor ah oo maxay ahayd dhaqaatiir ah oo u sheega dee wixii ka maqan iyo siyaabihii uu kusoo ceshan lahaa cuntadu waa muhiim abtii liibanaa kaa sheegay waslada cuna waslada hala cuno jirkeena dhistaa nafaqada jirka u fiican yahay cuntadu waa ogtihiin waa ogahayna wadanadeena Africa inay dhibaatooyin jiraan insha Allah waa laga bixi doonaa maxaa la dhahaye intaan karayno waa inaan isla dadaalno oo la dadaalo oo la eego wixii aan cunayno maadaama ay hoosna u dhigi karaan amba aan kor u qaadi karaan nolosheena wakaase intaasaan nagu darsan lahaa waxaan ka filaya inuu nacajibiyo sheekooyinka haddii nacajibiyaan like and subscribe and partagez, abonnez-vous. Voilà. Salam alaikum. Sonnoqod wanaagsan inshallah. Bye bye. Biyo kalgacal la meeri karin igu miistay